أهلا بكم. نجح 6 أسرى فلسطينيين صباح اليوم في الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه حسب مصلحة السجون الإسرائيلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. subaxnimadii Isniintii shalay ayaa arin caalamka dhanba ka yaabsay ka dhacday xabsiyada Israa'iil oo muslimiin badanba ku farxeen soo kale Falastiiniintuna aad ugu dabaaldegeen shalay. 6 nin oo kamid ah waxa iska caabinta Falastiiniinta ayaa xabsi kamid ah xabsiyada lagu ilaalada beeniyay Israa'iil qaab cajiib uga baxsaday oo haddii maqli jirtay filimka Prison Break iyo qaabka xabsiga uga baxsanayaan filimka laftirkiisa oo reality ay muuqaalkan kaga hadli doonaa. laakiin intaan muuqaalka bilaaban fadlan hadana waa cusubtay subscribe sar noo socoto muuqaalada dambe like na sar muuqaalka daawasho wacan. lix nin oo kamid ah waxa iska caabinta xarakada Fatx ayuun bay Yahuud ku baraarugeen subaxnimadii Isniinta raggan oo baxsaday oo aan jooginba. 6 nin oo markii hore laga soo qabtay magaalada Jiniin la yiraahdo magaalada oo saldhig ah markii hore xarakada Fatx la yiraahdo. 6 nin mid kamid ah wuxuu soo ahaan jiray markii hore hogaamiye ka tirsan xarakada Fatx. 9 subaxnimo Isniinta ayaa Yahuud markii ka daashay raggan dabagalkoodii ay soo waayeen ka qusteen ay warbaahinta soo bandhigeen in 6 kamid ah Falastiiniyiintii xabsiga ka baxseen xalay koodii barkii habeenimo laakiin ayagu ku baraarugeen xabsigan laga maqan yahay 3 barkii macnaha 2 saacadood ay u dhaxaysay intii ogaadeen in xabsiga ay ka baxseen nimankaas. 2 saacadoodna waa masaafo dheer oo waqti badan lagu jari karo. waxaana la yaab leh Yahuud sidee 6 nin oo halista intaas ay sheegeen in amnigooda ku leeyahay sidee hal qol ugu wada xireen markii hore waxyaabo la yaabeen dunida ay ka mid tahay. waxa soo kale caalamka cajiib ku noqotay nimankan qaabka u baxsadeen ruuxaantina falanqeynada badan oo kala duwan ayaa laga sameeyay. waxay sameeyeen suuligii qolkooda ku yaalay ay qoteen ilaa 30 mitir ilaa ay dibadda uga soo baxeen. arintana yar dul joogsano marka hore waxa isweydiin mudan nimankan sidee ku qodeen suuliga ama godkanba ku qoteen. waxaana naqaan badankan in maxaabiistu agab ama wax ku qodaan ba haysanin laakiin waxa la garanay ilaa hadda godka intaas laga 30 mitir waxay ku qodeen. waa su'aasha labaad waxaanu naqaan badanka marka god la qodayo in ciid badan soo baxdo godka 30 mitir marka qodeen ciidiisa xagee geeyeen. waa su'aasha maskaxda Yahuud ka weynaatay. waxa soo kale isweydiin mudan godkan muddada inta la sidii u qarneen waxaanu naqaan godkan 30 mitir wali inuu qof aan agab haysan habeen laba habeentona kuma qodayo qiyaas ahaantii bilooyin bay ku qaataa masana sida la qiyaasayo inay qodaan laakiin muddada inta la sidii u qarneen badanka wali waxaan naqaanaa in maxaabiista qolkii ku jiraan loo soo galo oo la baaro oo la jeegareeyo badankooda inay agab iyo haystaan ama telefoon haystaan oo kale wala baara badanka si muddadaas oo dhan u qarneen godka intaas la aan islaagna muuqaalkan oo ah godkii suuliga qodan iyo godkii kale banaanka ahaa ay ka soo baxeenba. ראשוני של שב"ס מגלה כי בסביבות השעה 1:30 בלילה 6 המחבלים נכנסים לחדר השירותים בתא מאסרם. הם מרימים את אחת מפלטות המתכת שברצפת התא ונכנסים אחד אחרי השני לתוך הפתח הצר של המנהרה. הם זוחלים לאורך כמה עשרות מטרים בודדים אל פתח היציאה של המנהרה שנמצא מטרים ספורים מחומת הכלא מתחת למגדל שמירה. לפי החשד הם מחליפים במקום את בגדיהם ומשם הם ממשיכים במסע הימלטות. xabsigan Israa'iil wuxuu ka mid yahay ugu ilaalada badan yahay oo dadka khatarta ku ah amnigooda sida shagaan ay ku xiraan waxaanu dharka gidaarkiisu dheeran yahay 8 mitir dhulkana in badan ay hoosta qodan yahay. waxaana ku magacaabaan xabsigan sanduuq sababtoo ah waxa dhacdan lagama baxsan karo sida sanduuqa uu samaysan yahay oo adeegta inuu qofna ka baxsado. waxa kale la yaab kale ee maskaxda Yahuud wali qaadanada waxa weeyaan godkii ay suuliga ka soo qadan wala gartay oo kaasi qolkooda ayuu ku dhex yaalay laakiin godkii kale ka soo baxayeen wuxuu ku ag yaalay goob ilaalineed. oo waxaanu naqaan badanka in xabsiyadu leeyihiin dabaq yar oo dheer oo ku xiran yahay khashaafado waaweyn oo leedhar oo iftiimisa xabsiga banaankiisa in ay baxsatay sidoo kale kaamirada ku xiran yihiin. dabaqaas ay ka soo baxeen oo godkii ka soo baxayeen 30 mitir soo jeexeen dabaqaas ku ag yaalay. waxaana la sheegay in gabadh ku qornay habeenkaas oo gabadhina seexatay laakiin xataa gabadha ilaalada hadii seexatay kaamirada ayaa ku yaalay iyo khashaafado waaweyn maxay kaamiradaas u qaban waayeen ama ragii kaamirada ilaalinaya xagee mareen. Israa'iil qaabkan oo baxsan maxaabiistaasi wax maskaxda ka wanaatay noqotay ilaa waqti xaadirkan war sheegaya qaabka godka u qodan iyo inta ku maqnaantii godka la qodayba waxa ma soo saaran. isla markii laakiin arintan dhacday oo ogaadeen in maxaabiis baxsatay markii 400 oo maxaabiis oo xabsigan ku jirtay way kala kaxeen oo xabsiyo kala duwan ay ku xidhan
waxayna ka baqeen in 400 leegu qorshe kala bilaabaan oo ay ku baxsanayaan marka heer waxay gaareen ay maxaabiistu taag waayeen oo ay ka baqaan markan oo kale waxa la xasuusanaysaa aayadii quraanka ahayd oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala lahaa haddii aad danqanaysaan iyaguna way danqanayaan ninkan siyaasiga oo Al-Jazeera warramaya sheegaya in xabsiyada Israa'iil ay aad u horumarsan soo kale tiknoolajiyada hor sareysa ku xiran tahay oo heer ay u dhoofiyeen tiknoolajiyada xabsiyada wadamada kale waxaan ku tilmaamay baxsasho mucjisa عندما تتكلمين عن السجون الإسرائيلية وفي العام 2021 إنما تتكلمين عن الخبرة المتراكمة ل70 عاما منذ إقامة دولة الاحتلال وحتى يومنا هذا وحتى إن إسرائيل باتت تصدر تكنولوجيا الأمن للدول الأخرى وخصوصا أمن السجون فأن يتمكن هؤلاء الأسرى الستة من أن يحفروا الباطون المسلح بسمك ما لا يقل عن 40 سنتيمتر والذي يتخلله القضبان الحديدية وشاهدنا خلال الصور أنهم استطاعوا أن يقطعوا هذه القضبان ثم يقومون بحفر التراب لأعماق واختراق أساسات السجن ثم الوصول إلى خارج السور الخارجي للسجن هذا حقيقة عمل شبه معجزة xabsigani wuxuu dhacaa magaalada Biisaan la yiraahdo hadad Biisaan xasuusataan dagaalkii weynaaye saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ku furanayeen magaalada Qudus oo muslimiintu kula galeen dawladda weynada Rum dagaalkan oo hogaaminay Khalid bin Walid Abu Ubayd ibn Jarrah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala guusha muslimiinta ku siiyay dagaal aad u weyn buu ahaa ornaanti magac weyn dagaalada muslimiinta kule Biisaan ayaana la yiraahdaa waxaana xabsigan la furay sanadii 2004 mas'uuliyiinta xabsiga Israa'iil u qaabilsan waxay ku faaneen in xabsigan aan laga baxsan karin qaabkii la doonaba oo ay ugu tala galeen dadka halista ku ah Israa'iil waxaana ku tilmaamaan ama ugu yeeri jireen magaca sanduuq iyagaaba u bixiyay waxaana la ogaaday xabsigan oo muslimiinta kaliya ku xiran ma jirto yahuudi ku xiran ama dadyo kala diimo kala ku xiran muslimiintu baa lagu xareeyaa badanka xabsigan in muslimiinta ku jirta caafimaad darro iyo nadaafad darro la kulmaan xabsigana sidoo kale waxa la isku dayn laga baxso 3 jeer hore oo ugu dambeysay 2014 laakiin way ku guul dareysteen Falastiiniyiintu ilaa ugu dambeyntii kan ay ku guuleysteen waxaana lagu magac daray filimkii ama taxanii caanka ah Prison Break ee la isku dayn xabsiyada Mareykanka laga baxsado filimkaas ay ugu magac dareen baxsashada gabagabadii muuqaalka Ilaahay ka soo furto maxaabiista kale muslimiinta ay ku dhibaataysan xabsiyadaas Israa'iil muuqaalkana maanta intaas nuugu yahay fadlan ugu subscribe sar fikirkaaga hoosta nuugu reeb. Wassalaamu calaykum.